السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waa maxay wasakhowga hawada? Wasakhowga hawadu waa iyadoo dhaawac loo geysto hawada, taasoo ka imanaysa xirfadaha iyo dhaqdhaqaaqa aadamaha iyo masiibooyinka rabbaaniga ah ee sida dabiiciga u dhaca. Maxaa keena wasakhowga hawada? Wasakhowga hawada ayaa waxaa keena laba sababood, taasi oo ay koowaad tahay dhaqdhaqaaqa ama xirfadaha uu sameeyo aadamuhu. Cilada aadamuhu uu sameynayo maalinba maalinta kasii dambaysa wuu sii durkaya ama wuu sii xoogeysanaya. Warshadaha aadka u waaweyn ama dalalka waaweyn waxay saameyn ku leeyihiin hawada, taasoo dhaawac u geysan karta ozoonka. Ficilada kale ee aadamuhu sameynayo ayaa ah maalinba maalinta kasii dambaysa uu ka takhalusayo dhirta oo uu sii durkayo dhanka magaalooyinka. Kaymihii waaweynaa ayuu ka wada dhigay aadamuhu meel magaalooyin ah. Geeduhu dhammaan waxay naga xeejiyaan amba naga ilaaliyeen, Ilaahay waa wax ilaaliyeen dabaylaha aadka u waaweyn, qoraxda ku soo dhacaysa dhulka, masiibooyinka dabiiciga ah, burburka dhulkamaha iyo gubashada kaymuhu. Lama oran karo arrintani waxay sabab u yihiin cimilada isbedesha, laakiin marka isbiirsadaan xirfadaha ay aadamuhu ku kacayaan, waxaa hubaal ah inay cimiladu isbedesho oo ay noqoto meel roobka laga heli jiray aan laga waayo, meel roobku ku yaraana ay roobku ku badnaado. kun sagaal boqol saddex iyo tobankii waxay ahayd markii ugu kululeyd adduunka, kaasi oo heerkulku dhulku gaadhay 134 digrii. waxaanay arrintan ka dhacday California, gobolka California ee Mareykanka. deegaanka ay ka dhacday ayaa hadda waxaa loo yaqaanaa Death Valley. dhammaan xaaladahani waxay sababi karaan in dhulku noqdo meel lamadegaan ah, oo haddii ay sidan kusii socoteen, kaaha amba fallaadhaha uu soo daayay cadceeddu waxay si toos ah markaasi u soo gaadhi doonaan dhulka laga waayo lakabka amba atmosphere-ka ozoonka.